sidaynu la wada soconno shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca maraakiibta ee qaada xamuulka ayaa sheegay inay joojiyeen inay adeegsadaan marinka badda cas gaar ahaan Bab al-Mandab kadib markii halkaasi ay weerar baan ku soo qaadeen kooxda Xuutiyiinta ah oo beegsanaya maraakiibta ay leeyihiin reer galbeedku iyo waliba kuwa u rarna Israa'iil. haddaba warbixinta waxaynu ku eegi doonaa jihada ay mareen maraakiibtaasi. shirkadaha kala Markis, Hebeg Liot, CMA, CGM Group, MSC ayaa dhammaantood shaaca ka qaaday inay ka wareegi doonaan gacanka Bab al-Mandab isla markaana ay adeegsan doonaan marinka ka yimaada dhinaca fog ee qaaradda Afrika. 40 shirkadood ayaa ahaa kuwii qaadi jiray 350 ka mid ah alaabaha iyo xamuulka caalamka loo kala gudbiyo, iyadoo 12 ka mid ah maraakiibta shirkadahan ayaa ka gooshi jiray xeebaha badda cas oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee isku xidha qaaradda Afrika, Yurub iyo Aasiya fog. gacanka Bab al-Mandab oo sanadkii ay ka gudbi jireen in ka badan 17,000 oo markab ayaa laga cabsi qabaa inuu noqdo mid guud ahaan bahaawanaya isla markaana aan la adeegsan doonin. meesha culaysku ka yimi ma aha Bab al-Mandab oo kaliya, balse arrinkan waxa uu saameyn ku yeeshay gacanka Suez Canal oo isagu si toos ah ugu xiriirsan xeebaha badda cas. sida uu sheegay madaxa Suez Canal Usman Rabic, 19 bishii Oktoobar in ka badan 50 markab ayaa dib ugu laabtay gacanka Suez iyagoo ku maagay in aanay u soo gudbin doonin dhinaca Bab al-Mandab maadaama ay ka jirto cabsi ah in ay weerar ku soo qaadaan kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen. marka ay maraakiibtu ka soo wareegaan gacanka Jabal Daariq ee dalka Morocco isla markaana ay u socdaan Aasiyada fog gaar ahaan Hindiya iyo Shiinaha, waxa uu safarkoodu qaadan jiray 19 maalmood oo kaliya. taasna waxa ay qayb ka ahayd gacanka Bab al-Mandab iyo xeebaha badda cas oo ahayd tii ay sida ugu fudud ugu soo gudbi jireen maraakiibtaasi. balse hadda maraakiibta ku socota Aasiya ama xeebaha geeska Afrika ayaa ku qasbanaan doona in ay ka soo wareegaan waqooyiga, galbeedka iyo koonfur Afrika si ay u soo gaadhaan xeebaha badweynta ee Hindiya. safarkan ayaa noqon doona mid qaata 30 maalmood iyo in ka badan, oo taas oo ka dhigan inay meesha soo galeen 12 maalmood oo dheeraad ah oo aan hore xisaabta ugu jirin. arrinkan ayaa keeni kara inay kor u kacaan qiimaha alaabaha lagu qaado iyo dhammaanba sicirka shixnadaha ku soo wajahan dalalka ay arrintani saameynta ku yeelan doonto. kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa 17 bisha Oktoobar sii kordhiyay weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta reer galbeedka, waxayna kooxdu tan iyo xilligaasi samaysay in ka badan 8 weerar oo maraakiib kuwaas oo lagu beegsaday mid uu ku jiray kii ay guusha ka gaadheen ee lagu qafaashay markabkii uu lahaa ganacsadii reer Israa'iil ee lagu magacaabi jiray markabkaasi Galaxy Leader. ugu dambeyntii dalalka reer galbeedka ee Mareykanku ugu horeeya ayaa wada qorshe ciidan oo isku dhufo oo lagu doonayo inay lagu keeno xeebaha badda cas, waxaana ciidamada la soo wada ku jira kuwa Carbeed oo ka tirsan wadamada Carabta kuwaas oo la rabo inay qayb ka noqdaan howlgallada lagaga hortagayo weeraradaas daba jooga ah ay wadaan kooxda Xuutiyiinta ee joogta dalka Yemen. haddaba sidee ayuu saameyn ugu yeelan doonaa badda dheer ee Soomaaliyeed?